horta awoodda oo shabaab dadka bunbuuniya iyo meelahan madaxa joogtaa laga bunbuuniyaa wax oo awood maanta ay leeyihiin ma lahan waa dad oo waqtigooda sii dhammaanahay waaye waa dad oo haddii ay dhacdo oo in layska hor imaado runta ka sheegi maayaan dagaalka waa dad in gaadiile iyo gumaysi dadka ku galaan mooye wax oo ka hor imaad ama wax oo maxaa ahaay oo saas u awood badan ma arkin marka maan arkin wax oo meesha oo ku awood badan insha allah waa la ogyahay jilib iyo jamaama inay awooddooda xoogga tahay waa wax bari laguma soo maran kulle raganimadani iyo ilaah baa na soo badbaaday iyo go-aankayn oo wada jir ah aniga iyo askarteyda aan kusoo wada qaadan aan ku imaanay baraawe aan doon kaga soo raacnay kuna imaanay laakiin weligay ma aan arkin mana maqlmo xildhibaan annaga naga tirsan marka taliyaha ciidanka xoogga dalka markii baraawe oo aan imaanay waa ogay xogtayn baraawaa laga siiyey xogta baraawaa laga siiyey waa nala socday halla keenuu dhahay waa nala keenay sidii noola sheegaya meeshaan ka soo degnay basiiro iyo cabdicasiis maama aan kasoo liidaan ka soo degnay marka waxaan waa si sharaf leh aan ku wareejinay si sharaf leh meel naloo keenay maalintii nala keenay ilaa abtinaaw marka ciidanka ina keenay ma ciidan booliisu ahaa ama ciidan military ah oo isku intaan ilgey intee xarun ciidan ma ilgey ma hotel ila deji xageen ila deji meel xaafadoo kale hotel ma meel xaafadoo kale aan nala geeyey waxna oo na keen waa ragan oo aan isgaranayno kale oo boliis iyo oo military oo si hoosa marka muqdisho imaadeen ciidanka buur geliseen muqdisho imaadeen oo muqdisho joogteen waa la wargeliyey baaqayno haddaan la wargelin intuusa baarlamaanka hortago ma uusa dhihi lahayn intaasoo raga kismaayo ka imaata ma dhihi lahayn waa wuxuu ogyaa waaye marka ilaa hadda darajo ma lahan mudnaan male alla ma ku darnaade wax sharaf iyo lambaro qaarkood hadda oo xayiirnaa iska jiro marka xageed kadib aa gashanaan ma ciidanka jubbaland kadib aa gashanadeen jubbooyin ku sugan ama ciidanka dowladda oo military oo jubbooyin ku sugan xageed kadib aa gashanadeen daraawiishtii waxaan nahay xoogga dalka soomaaliya 43 waa isku intaba isugu jirnaa isku dhaf waay maxaa marka inaad jubbaland kasoo tagtaan oo ciidankaas ay isfaham weysaan maamulka meesha jooga oo idin ku kale rajiimka meesha haastaan usoo dhaafay rajiimka meesha haastaan usoo dhaafay shabaab khasaaraha intee la gaarsiisay maadaama 17 aan ku maqlay oo geysteen 17 aan ku maqlay geysteen degmada jamaame qaar dhaawac waxay geysteen oo ilaa 9 ahay waxay geysteen jilib 8 baa kaga dhimataan ku maqalnay dhexdan waan isku helnay meel jilib u dhow waan isku helnay 13 ku maqlay inay ka dhimatay raggana la xiriirayay marka saasaan contacta usoo wada soconay annaga iyo dadka ku dhaqan meesha oo kala duwan oo jubbooyinkaas saasaan kusoo nabadgalna haddayse dadkan la shaqeyn lahayn ma u soo mareen maxaa marka hadda dowladda ugu baaqaysaan dowladdu waxaan ugu baaqaynaa inta daraawiishta in xoogga dalka lagu daro inta hadda oo kalena oo inta laga diiwaangeliyo oo laga diiwaangeliyo mudnaanta aan ku lahayn dowladda inaan ka helno darajo ha ahaato dhaqaalo waxaan heli kasiiba darajo in nalagu celino howlgalkan meesha aan kasii wadnaa aad aan u jeclahay darajada ugu sarreysa waay oo ay noogu soo dhaweysay dowladda darajada ugu sarreysa waay dowladda ay noogu soo dhaweysay mas-uuliyiinta inaana xirxiray hebel aan dhihi karo maxaa marka sababtan ila xiran maxay tahay maxaa usoo dagaalanteen waan u maliyo waa saas maxaa dagaalkaas intaas la eegin ii soo geliyey waayo nin abaalmarin leh in xabsi oo jisa loogu dhigo
taasaan u qaadan aan ku aamusnaa ilaa hadda marka xaggeen igula xiray sababtu maxay tahay nimankan shabaab waaye haye ha shabaab waaye waa iska soo galeen waana nala soo hage xaggeed ku sugantihiin xaggeed joogtiin waa dad ehlaan u raadinayna maciin aan maciin badne inay na geeyaan madaxtooyada na geeyaan sidii ra-iisul wasaare oo kale baarlamaanka taliyaha xoog oo kale taliyaha ciidamada lugta taliya ku-xigeenka intaba in nala geynayo aamoodin annagoo faraxsan inta ciidan nabad sugid nala keenayaa nalagu xaabiyey haye jil ilaa ay jilcu aan ku jirno maaqa habeen marka ku jiro ku jirta laba habeen laba habeen ha kadib sideen ila soo siday marka wallaahi raggii oo boliiskii iyo raggii oo insha allah raggi aan isgaranayn hadday telefoonka aan soo xiriirin aan wax saas ahayn oo iska ciidan caadi ah weji noogu soo deyen iyo aqoon haye aan nalagu soo deyey sax ha taliyaha ciidanka markaas aqbaartii ugu gudbisay waa ka dharagsan yahay wax kasta taliyaha ciidanka nin jooggaada arki waa jiifkaada ma arkaya marka ragga idin soo dameentay oo idin soo sii daayay ma booliisay ka tirsan yihiin ma xaggee ka tirsan yihiin ciidamada ha kuwa idin soo sii daayay waa boliis haye military isku jiro sax qalad baa dhacay naga raalli ahaada si qaldan waa aad bay noo soo dhaweeyeen markaan isku sheegna nimankaan nahay raggana waa sugud waa yaabeen haye aad iyo aad ay u qiiroodeen sax war waa qaldanay naga raalli ahaada naga raalli ahaada calashaan warbixintiina marka hore nimanka idin xira ma haysan ma haysan waxaa lagu wargeliyay inaad qoryo magaalada la soo gasheen dhar aad iskala soo gasheen meelna aad iska dhigteen haa taasay ahayd kadib markii xogtiina ogaayeen waa idin soo sii daayay waa nala soo sii daaya haye ayagoo na raalli gelinayo aad ugu xun haye xeriga nolo xiray xeriggiina taliyaha booliiska taliyaha looma sheego militariga xogtu waa haya haye taliya saan qabo xogtu waa haya sax mar walba xog baa gaaraysaa horan waan kugu sheegay intuu hadduusan xogtayna intuu baarlamaanka hor tago arrimaha kama hadli lahayn sooma marka haddana asagaa ku sugayna way sababtay arrintan ciidanka soo sameeyay had ku dhex jira oo idin dhexeeya ay jira oo wararka idin kala qaadayay waxay isleeyihiin xogaa mashquulo arrimo dowladda iska jiro maxaa aad tilmaami lahaydeen xiriirkan inta laba bilood oo ku sugnayd magaalada muqdisho hore la xiriirkii uga socday way kaliya horta laba mas'aladoodna waa jirtaa midna taliyo aan garanayno maanta xil haayo ma aragno oo noo tegi lahay oo noo adeegi lahay haddana mashquulka waa jiraa mashquul ciidanaa jira meel walbo raqabayaashaana ku mashquulsan ayagana kuwaasi ku mashquulsan taliyaha ciidanka saan qabo laakiin nin sargaaloon annaga naqaano maanta oo xil weyn hayo aan u tegi lahayn si taliya urur oo kale ma haysano mana aragno kaan u tagno gaashaanla dhexe waaye xilba ma hayo lama aqoonsano haye marka waxaa muuqata ama loo malaynayaa in idinkiiba idinla kashiirsan yahay oo idin hay-adihii amniga ama hay-adihii dowladda idin aamin la-da taas maxaad u sheegaysaa والله وأنا الأمنسيها أدي أنا الأمنسيها لكن نكي نو قاضي لها أما ورقد قاضي لها جين لها تليها حوجا لأنا واسكت دين حتى نقول كان إن وزارة قاسان دقن تجنا أنا أقول taliska aad ka soo tagteen qaybta afarta saddexaad taliska kale ciidamada militariga ku soo wargeliyay فقد يكسور قليل haye أنا فقد معي inaad soo baxsateen ها sax inkastoo ka gaabsadeen qaarkood hadda oo laakiin nimankan oo daraawiishta ah fakada laga gudbiyey kuwan xoogga dalkana wax maanta oo maasha allah waa fiicannahay waana isla xiriirnaa ilaa hadda sida Soomaaliyeed maxaad u sheegaysaan dowladda maxaad u sheegaysaan bulshada Soomaaliyeed waxaan sheegaynaa horta waxaan dhibkaan marna ilaaha noo qadire haddana insha allah waa ka baxaynaa dowladda Soomaaliyeed si degdeg inay noo daryeelayso ay noo xanaanaysaan ka codsanayna sidii madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed taliya ku-xigeenka taliyaha ciidanka lugta iyo wasiirka gaashaandhigga iyo ku-xigeenkiisaba ayagaan ugu fadhinaa maanta ayagaan nahay ayagaan ku aftirsanaa
waana ka sugaynaa insha allah. waxaan ka soo tagnay annaga Kismaayo, gaar ahaan baarka Sanguuni ayaan ka soo tagnay. waxaan ku soo dagaalanay Jamaame, meel u dhow oo 4 kilomitir u jirto ayaan ku soo dagaalanay. cadowgii waa naga jabay, waan jabinay, meesha ragaan ugu lahaynay, marka annagana ragaa noogu dhintay. waan ka soo tagnay haddana meel kale yay noo galeen, waan iska caawinay, way jabeen. meel saddexaad haddana ay noo galeen, waan iska caawinay, waan jabinay. marka baraa waan imaanay. baraaba dawladda naga soo qaaday, waxayna keentay Muqdisho. xamar ayaan joognaa, rag saraakiisha ka mid ahaa qoryihii aan u dhiibnay. haddana ilaa iyo haddana dawladdii wax hadda noo imaado oo na wareysto oo wax warbixin naga qaadana ma laha. ilaa iyo haddana meeshii aan ku sugannahay. dawladdu waxaan ka rabnaa si degdeg inay nooga caawiso. markaad Muqdisho imaadeen xiriir lama sameyseen taliska ciidamada wasaaradda gaashaandhigga, xiriir lama sameyseen, yaad xiriir la sameyseen? annaga waxaan xiriir aan la sameynay taliyaha xoogga, waxaa kalaan la sameynay wasiirka gaashaandhigga. dad baan u dirnay laakiin annaga ma aadin. warbixinta dadkaan u dirnaa noo soo gudbinayo mar walba. maxay idiin sheegeen marka? waxay noo sheegeen hooshiina lagu jiraa, la socda. ilaa iyo haddana dawladdii annaga wax hadda aan ka hayno ma laha. Muqdisho meeqa isbuuc aad ku sugantihiin? waxaan joognaa 2 bilood. dawladdina waxay noo qabatana ma laha, xabad kale in cid noo gadda ma laha. ilaa iyo haddana waxaan joognaa meesha dawladdii, raggii saraakiisha ayna keeneen yaan degannahay, aan ku sugannahay ilaa iyo haddana. Muqdisho markaad timaadeen dhankeed ka soo gasheen? waxaan ka soo galnay liido haye cabdicasiis. haye okay. yaa idin soo dhaweeyo? ma ciidamada dawladda ay soo dhaweeyo, ma saraakiil ay soo dhaweysay, ama dashacba ay soo dhaweeyo? maya ciidamada dawladda aana soo dhaweysay. koyalka noolaga soo qaaday, meesha haddeer aan degannahay koyalka nooga keenay. haye okay. maxaad tabanaysaa markaad codsanaysaa? waxaan ka codsanaynaa dawladda, annaga waxaan nahay rag oo saraakiil ah iyo rag saraakiil xigeen ah. waxaan ka rabnaa dawladda haddeer inay na qaabisho oo goordhow lambaradeenni iyo waxayni ay la wareegto haye ayaan ka rabnaa. Odawaha xiriirkiisa waxaa inoogu dambeysay baraaw markaan soo gelayn. intaas ay inoogu dambeysay, kadibna wax warbixin iyo waxaa kama helin ilaa iyo hadda. maxay ku kalifan karaan Kismaayo ka soo tagtaan? Kismaayo dhibaatadan ugu soo tagnay kolley deegaanada u dhow degmada Jamaame markaan tagno oo 2 kilomitir oo nala soo celinayo, dhibaato dadkeennii maatadii meesha ku sugneed oo la dhibahayo, annaga darteeni loo dhibahayo, oo mar walbaba laga qaadahayo lacag fara badan keena la leeyahay dadkii iyo waxaa la xirxirhayo. waxaa la leeyahay wiilashiini waay wax saa noo dhibahayo, mar walba saas la leeyahay. annagana tilaab walba markaan qaadnaba soo naqda nala dhahayo, annaga marka tii aan u dulqaadan weyno. yaa soo noqday ilahay marka oo diidan in Jamaamada qabto? kolley saraakiisha meesha oo joogto. haye okay. macnaha ay Jamaama ma leeyihiin ma idiin sheegeen mise waa idiin sheegeen? kolley adiga kolley maskaxdaada waa ka dhammaystiran kartaa. sax okay. waxaan kasoo tagnay magaalada Kismaayo. waxaan kasoo tagnay anigoo 16 wiil ah. waan soo baxnay, waxaan soo aaday degmada Jamaame. degmada Jamaame duleelkeed anoo soo marayna dagaalna qabsaday. meeshii 6 wiil nooga dhimatay. waan soo baxnay, meel kaloo dagaal nooga qabsaday. haddana waa iska caawinay, wax dhibaato noogama gaarin. meel saddexaad aa imaana, haddana xabad kalaana qabsatay, wax dhibaato noogama gaarin. ilaahay naga soo badbaadiyey. waan kasoo tagnay ilaa waddadaan soo maraynay, waxaa imaanay degmada Baraawe.
degmada Baraawe markaa imaanay maalmo ilaa iyo 2 isbuucaan joognay waa nagala soo waday dad dowladda ka mid ahna soo waday doonaa nagala soo saaray xamaraa noola keenay meel gurigaa noola dejiyey ilaa hadda meeshaa degannahay wax dowlad iyo wax hadda oo macnihii gacan oo dowladdana soo gaartay dowladda dhexe ayaa garabka soo doonanay wax hadda macnihii dhibaatadii la weli dhex ka taagannahay inkastoo intaasoo dhibaato aan soo marnay oo haddana aan imaanay xamar ilaa iyo haddan dee dhibaatadii dhex ugu jirnaa dadka qaarkood oo way xanuunsan yihiin dad hadda iska jiifo xabad biristumal wax ku gadaya ma lahan dhibaato badanaa iska jirto rag badanaa hadda waxaa laga yaabaa kasoo tageen oo xaasas iyo ilmo kasoo tagay oo inta imaaday ilaa iyo haddana mushaahar waxba aa qaadanin iska joogo wax mushaahar ay qaataa ma lahan dowladda wax imaado macnihii raggii waaye oo macnihii waxna garab qabta ma lahan meeshaa iska degannahay wax dowladda had noo imaado ma lahan tan kaloo labaadna markaa imaane haddana lama oga haddaa dhihi laheenne dad saraakiil ka mid ah ayaan soo qaaday badda xeebta Liido saldhigga Cabdicasiis aa noola keenay nabaradaa nagala qore qoryaa nagala qaaday kolley saraakiil dowladda ka mid ah ayaa haya qorya hadda macnihii wax dib noo soo wacana ma lahan wax dib noo soo raadiyan ma lahan yaa marka qoryaha dadka ka qaaday xaggee ka tirsan yihiin mataliska ciidamada booliiska mataliska ciidamada taliska ciidanka booliska Cabdicasiis saldhigga Cabdicasiis nagala qaaday qoryaha waa nagala qaaday nabaraa nagala qortay hadda qaara sawiraan naga qaatay ilaa iyo haddana wax jawaab iyo wax noo imaada ma lahan oo nala soo qaaday gurigaa noogu soo dejiyey gaari cabdibilaa noogula soo qaaday wax noo imaado ilaa abuurtan ma lahan ilaa iyo hadda marka aad kasoo tagteen jamaama Baraawe aad ku imaadeen imisaa dagaalaad al-shabaab la gashay 3 dagaalaan soo galnay midda koowaad waa dagaal xoog ahaayey ilaa 8 saac ayaanu qabsaday ilaa maqribkii dagaal xabad oo nagu socotay ay waajabeen anagana waa kasoo jabnay 6 qof aa meesha noogu dhimatay kolle sababo aan kusoo qaadano dadkaani macnihii wax gaari ma wadinin wax doon ma wadinin kolle waa dareemi kartaa meel duur ah waaye xeeb ah waxaa qaadi kartid ma lahan askartii dagaalka kaga guriyootay ma idinkaa aastay ama shabaab aad ugu tagteen meesha aga tagnay madaxa ka jirteenba 6 qof 6 wiil madaxa ka wada jirteen dadka shacabka wada jooga waan kasoo tagnay hay markaad xiriir ma la samayseen eheladiina xildhibaanadiina ku jira baarlamaanka xildhibaano intaa u tagnay rag anaga naga mid aha xildhibaano nin ogaasi ay u tageen oo anaga macnihii anaga naga mid aha intaa loo tagay ay macnihii qaar kadib wax oo jawaab la soo laabtaan ala dhehe maalmo kadib waa nala qabtay waa nala xiray hal haween saldhiggaan meeshaan waa beri aa ku baranay subaxdii waa nagala qaaday gurjilic waa nala geeyey waa nagala soo qaaday dad oo macnihii kuwii hore noogu imaaday xeebta Liido nin ka mid ah noo imaaday waa nala soo sii daayay meeshaa nagula soo celiyey marka ilaa iyo haddan dee aniga waxaan oolahay macnihii magacyo meesha aan ka imaano hore warbixinta ayagaa bixiyeen anaga su-aalo mana la weydiina nabaradaa nagala qortay magacyaha iyo sanadda nin walba wuxuu yahaa la weydiiyey nambarkaa nagala qortay saraakiishii meesha noogu imaad saraakiil ka mid ah na soo qaaday meesha nagula soo celiyey ilaa iyo haddana wax noo imaad ilaa abuurta ma lahan bishaan ku 3 ku jirnaa meesha iskaga xareysannahay